kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Salma Vlog and Entertainment. waxaan ku soo gudbinaa xubnooyin kala duwan maantana waxaan idin haynaa xubinta ma ogtahay waxyaabaha aan idin hayno aad daawan doontaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo waxaa kamid gabar si kadiisa loogu keenay fasalka iyadoo ku jirta hadiyad balse taariikh aysan filin kala kulantay waxa hadiyada looga dhigay ee wiilkaas jaceylka u qaaday ayaan idin haynaa ma ogtahay 16 jirka ka taajirtay aalada TikTok ee indhaha caalamku ay ku jeedeen maalmihii dambe maxayse tahay inantani oo ay sameysaa heerkaas waxa ay ku gaartay ee dhammaan inta aaladaas adeegsata dunida oo dhan ay kaga horeyso waatay gabadha iyadoo maseer badan ninkeeda naag kale u guurin karta warbixin ayaan iyana idin haynaa mar kale iyo ku soo dhawaada xubinta ma ogtahay waa hagaag aan ku bilowno caalamka oo dhan waxa laga yaabaa in dadka qaarkood siyaabo kala duwan ay u helaan fursado ay kaga taajiri karaan naqshado kala duwan oo ay isticmaalaan haddaba ma ogtahay daawade in ay jirto gabar 16 sano jir ah oo haddana ay noqotay midda ugu taajirsan ee lacagaha ka sameeya caalamka marka la eego aaladda adeegsiga bulshada baraha ay u badan tahay ee TikTok loo yaqaano gabadhan waxa la yiraahdaa Charlotte Amelio waa gabadh 2004 dhalatay 16 sano jir weeyaan hadda da'deeda TikTok waa qofka ugu badan ee isticmaala ee ugu dadka badan 75 milyan oo qofood ayaa ku xiran boggeedaas ay TikTok adeegsato lacag fara badan ayaa ka sameysaa saacadii 48,000 oo doolarka Mareykanka ayaa gabadhaas ay soo xareysaa waxyaabaha cajiibka ah ee gabadhan ay sameyso ayaa ah iyadoo xitaa aan hadallo iska duubin ay qaab jilliin oo kale ay u sameysaa iyadoo faraha isticmaalaysa isla markaana ay sidaas dad badan ku heshaa halkii boosti ama halkii qoraal ay soo dhigto ayaana ay ku heshaa baa la yiri lacag gaaraysa 48,000 oo doolarka Mareykanka dadka ka hela muuqaalkaas halka ah celceli 8 milyan ilaa 7 milyan oo qofood ayaa uga falceliyay iyadoo saacad ahaanna ay 5 milyan daawadaan halkii muuqaal ay gabadhan soo geliso badankood dadka ku xiran gabadhan Charlotte Amelio oo Mareykanka u dhalatay waxay sheegeen in ay u riyaaqaan qaab tabinteeda iyo hal abuurka ay la timid waa hagaag weli xubinta ma ogtahay iyo daawanaysaan oo aan ku soo gudbino waxyaabaha aysan badi dadku ogeyn bal markan waxa macquul ah in dadka qaar ay la yaab ku noqoto maseerka dumarka marka uu ku badan yahay aysan raalli kaga noqonayn in ay guursadaan oo dumar kale in ninka ay wada joogaan aysan u ogolaanin ogow qasab ma aha in irsaaqadu ay noqoto lacag oo kaliya waxa ay gabadhu sameyn kartaa inay ku guuriso haddii ay raalliye ku tahay sheeko yar oo ka dhacday baadiyaha mid ka mid ah gobolada Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in haweeney ay ninkeeda u guurisay xaas kale iyada oo 12 sano ay wada joogeen ciyaalna ay u dhashay oo ilaa 10 gaarayay tani ayaa dumarka Soomaaliyeed ay ku noqon kartaa dhif iyo naadir marka la eego badankood in ay ka sameeyeen yihiin 95% inaysan ogoleen in haweeney kale la guursado laakiin raalliye haddii ay tahay waxa ay ku suurto gelin kartaa oo ay ku guurin kartaa haweeney kale sida ka dhacday mid ka mid ah baadiyaha Soomaaliya oo dhacdadaas laga soo tabiyay gabdhuhu ma jecla in gabar kale laga daba keeno amaba ay kaga horeeyaan ninka in ay nolosha wadaagaan ay ku heshiyaan ma ogtahayse in haweenku marka ay noqoto in lala guursado oo haweeney kale ay tartan sidaas kaga heli karto oo ay soo jiidasho badan sameyn karto
balse wiilow waxaa laga yaabaa in hal dumara oo 4 u dhiganta aad heli karto, balse dooqu adiga ayuu kugu xiran yahay. hagaag qodobka ugu dambeeya ayaan markaan eegaynaa. sheeko cajiiba ayaa ka dhacday mid ka mid ah dalalka Afrika, iyadoo iskuulka fasalka lagu jiro oo macalinka xiisada uu ka maqnaa ayaa wiil ka mid ahaa kuwa fasalka dhiganayay waxa uu inta dul yimi gabar, kadibna jacayl uu u qaaday hadiyad ahaan uga dhigay mobile. sawirka baakada uu ku jiray waxaa ka muuqanayay wiilkaas uu waday telefoonka iPhone-ka loo yaqaano oo aad dadku ay u jecel yihiin. laakiin dadka fasalka ku jiray oo wiilal iyo gabdho isugu jiray ayaa sheeda kala socday hadiyad guddoonsiinta gabadhan wiilkaas jacaylka uu qaaday. waxaase markii ay aragtay faraxday, indhaha ayaana lagu soo wada eegayay. waa ay faraxday, baakada ayay ka furtay, mise telefoon waxaa ku jira nooca ay Soomaalidu u taqaano niclaha, waana lagu wada qoslay gabadhii, sida muuqaalkaba aad ka arki kartaan. gudahaan daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa xubinta moogtahay janalka Salma Vlog and Entertainment ayaad ka daawanayseen. anigoo Xasan Xayi Cabdullaahi ayaa soo tabinayay. intaan dib dambe muuqaalkan mid xiga isku arki doonno, sidaas nabadgelyo. What